cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cismaan ayaa maanta mar uu shajirad ku qabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa uu ku baaqay wadahadal nabadeed waxa warkan dhameystiraya wariyaha Cabdinuur Cismaan Aadan Careys Cabdinuur Hanasti kulankan ayaa waxa maanta shir gudoominaya gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cismaan waxaana ka soo qayb galay kulanka madax kamid ah maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne mas'uuliyiinta garsoorka gobolka Hiiraan laamaha amniga gobolka ayaa goobjoog ka ah kulanka ayaa inta uu socday waxa loogu hadlay wax ka qabashada amniga dhaqaalaha iyo duwaysiinta madax kamid ah maamulka gobolka Hiiraan ee kan degmada Beledweyne oo la hadlay kulanka kadib warbaahinta ayaa sheegay in farxad weyn u tahay in muddo dhowr bilood kadib laga shaqo bilaabo xarunta lagu armiyo maamulka gobolka Hiiraan gudoomiye soo dhawow mudane gudoomiye soo dhawow maanta waa maalin qaali nagu ah oo ma aragtay aan shaqadii aan ma aragtay lagu idmaday ayaan insha Allah biidnaahi kariim kugu soo dhaweynayna insha Allah waa markii ugu horeysay oo xafiiskan muddo laga maqnaay ee maanta la furo anigu lix boodaan magacaabanahay wiil xafiiskan ma iimaan lix boodaan magacaabanahay soo noqodkayga dambe waxaan aad iyo aad u faraxsanahay marka in xafiiskii aan ku shaqeey jiri maamulka gobolka uu ku shaqeey jiri shacabka reer Hiiraan maslaxadooda iyo danahooda looga armi jiri inuu maanta furan yahay oo gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Madax Cali Jeeta Cismaan oo hadda ma ag fadhiyo oo maamulkii u yeeray oo maamulkii ay hadda fadhiyaan isla markaas insha Allah loo arki doono waxyaabaha quseeyo taas horto waxa leeyahay waa hambaliya iyadoo fikirka hambaliya waa lagu tabidda ayaad u soo noqotay waxaan rabnaa shalay meeshay joogteen inaad ka sii wado magaaladan waa isku dhaxyaacday runtii amni kama jiro wax ka jira malahan meeshii shalay inaad ka bilowdaan rabna annagana garbahadan taaganahay xaqiijinta amnigan kula taaganahay sidaad shalay shabaab ula dagaalaysan oo dagaashan rabna gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Jeeta Cismaan ayaa goobta gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in wadahadal lagu dhameeyo dhammaan wixii khilaaf siyaasadeed iyo mid bulsho ah oo gobolka Hiiraan ka jira wuxuuna balan qaaday inuu la imaani doono wax qabad muuqda oo la taaban karo dagaalkii labaad ee adduunka wadahadal ku dhamaaday wax inta bilowday shidaha iska socdaa ma jiraan waxaan diyaar u ahay qof kasta iyo cid kasta xafiisaan iyo ka mas'uuliyad inaan la fariisto waxaan rumaysnahay principle-kayga haddaan la heshiin inaan horumar laga shaqay karin waxaan diyaar u ahay mujtamaca Soomaaliyeed ee aniga mas'uuliyad iga saaran tahay iyo kuwa aan kari karnaba inaan gacanteena iyo xooggeena iyo maskaxdeena u leexino meeshaan shida u leexinay dib u heshiisiinta inaan u leexino Cabdinuur Cismaan Aadan Careys idaacadii TV-ga caalamiga SBC magaalada Beledweyne